waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. bacdi salaam, waxaan soo galnay doorasho cajiib ah oo dhinac dhalinyaro ahaan aanu malayn horay inaysan u dhicin. maanta ay ugu horreysay uu bilaabay xisbiga Daljir garabkiisa dhalinyarada oo ay ku doorteen gudoomiye iyo ku xigeen oo noqon doona gudoomiyaha guud ee garabka dhalinyarada. doorashadaas oo noo soo bilaabatay maalinkii Axadda, 3 maalmood ay socotay degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ku yeesheen gudoomiye ku xigeen, xog haye ilaa golaha dhexe ee baarlamaanka. runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa. qof walbaba uu dareemi karaa dad dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 35 ilaa 18 u dhaxayso oo aanan arag dal dawlad leh, nidaam ka jiro, doorasho la galayo, oo haddana sameeyay doorasho cajiib ah oo aan loo kala hadhin. xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa waa guul u soo hoyatay dhammaan shacbiga Soomaaliyeed iyo xisbiga Daljirintaba. sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddiga doorashada oo run ahaantii aad u dhabar adeegay oo maalin iyo habeen u taagnaa sidii maruun ay ku dhici lahayd in la helo gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen guud ee garabka dhalinyarada ah. run ahaantii waa dareemi kartiin dad dhalinyaro aan wada nahay. qaar baa jaamacada dhigta, qaar baa shaqeeya. haddana iyadoo sidaas tahay ayay waxay u hureen inay hadafkoodii ama yoolkoodii xisbi ahaan inay ka mira dhaliyaan oy unkaan amaba dhidibada ay u taagaan gudoomiye ku xigeen uu yeeshay xisbiga Daljir. run ahaantii waa wax aad loogu farxo. dad dhalinyaro oo isu soo abaabulay waa dareemi kartaan dad aanan doorasho arag sida wasada. xaqiiqatan waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo aad u bogaadinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka tashadaan aayahooda dambe iyo mustaqbalka dambe ee soo socda. waayo dalkan kale wuxuu u baahan yahay dad si dhaba isugu taaga oo ka mira dhaliya maamuuska iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay Soomaalida. xaqiiqdii waxaan meesha ka maqnayn in loo baahan yahay in la sameeyo hal wax oo keliya haddii la sameeyo waxa kale oo dhan uu hoos iman karaa isleeyahay. halkaas wax oo keliya hal ka mid ah cadaaladda oo keliya. waxaan aaminsanahay ama dhammaanteen aan wada ognahay cadaaladda oo keliya haddii la unko waxa kale oo dhan inay soo wada hoosgelayaan oo hoos imanayaan. haddii taas laga shaqeeyana inaynan dhici doonin wixii hore noogu soo dhacay. waa inaan u istaagno sidaan uga kabsan lahayn wixii na soo maray, aan isu saamixi lahayn, aan isu wada cafin lahayn, aan isugu day lahayn inaan hal far wada noqono isla markaana aan jid wada marno. waqtiga oo yar aawadeed inaan